السلام عليكم soo dhawaada mar kale muuqaalkan maanta waxaynu ku eegi doonaa magaalada ugu qabow adduunka halkaasoo temperature-ka magaaladaasi uu gaadhayo halka ugu hooseysa oo ah -71.2 Celsius. ninkan ayaana magaaladan booqanaya haddaba ugu horreyn sida aynu halkan ka arkayno muuqaalka bilowgiisa ninkan waxayna tusayay yiigan meesha ku qallafay ee barafka noqday. waxaanu ninkani sheegaya haddii waqti yar oo kale dibadda sii joogto sida eegan oo kale in qofku qallafayo wejigiisuna baraf isku bedelayo si degdegan ay naftu uga bixi kartaba keliyana ninkan isagoo 15 daqiiqo oo kaliya dibadda joogay durtaba sankiisa cadaan ayuu isku bedelay markaabana waxaa dhacaysa in qofka saliskiisa iyo barafku ay saddex galaan sidoo kale tissue-ga uu jidhkeenu ka samaysan yahayna waxa uu bilaabayaa inuu dhinto haddii aad waqti yar oo kale sii joogto dibadda isagoo ninkan iyo dadkii la socdayna 5 mir oo kaliya haddii ay sii joogi lahayn dibadda ay khatar geli lahaayeen sidaa daradeed gudaha ay u carareen sida muuqaalka inooga muuqata tuuladan yar ee ku taalla daba dalka ruushka waa magaalada ugu qabow ee dadku degan yihiin adduunka sidoo kale waqtiga ugu qabow ayaanu ninkani joogaa haddaba meeshan si aad ugu badbaado oo aad u noolaato waxaad u baahantay inaad iska dul xidhato maryo gaadhiya 20 shay sidoo kalena aad daboosho dhinac kasta oo ka mid jidhkaaga sida madaxa lugaha gacmaha oo aad xidhato galofisyo iyo kaba waaweyn maadaama marka guryaha lagu jiraa dibadda uga baxaysa aad wajahayso isbeddel cimilada ku dhacaya oo aad u hooseeya kaasoo boqolka ka hoos maraya 72 digrii sidoo kale maryahana waxaad ka dul xidhanaysaa koodhadh waaweyn iyo weliba waxyaabo kaloo madaxa kaa daboolaya kuwaasoo dhammaantood laga sameeyey haragga bahalka goodirka loo yaqaano markuu ninkani alaabtiisa sidaa usoo wada xidhana dibadda ayuu usoo baxayaa si uu usoo eego bal dibadda iyo qaabka ay tahay iyo waxaad kala kulmayso maadaama meel yaro diiran aad ka soo baxdo gudihii guryaha ah isla markiibana ninkan wuxuu bilaabay inuu jidhkiisa baraf dul karo indhihiisa madaxa meel walba tuuladan yar markuu dhex marayna waxay u muuqatay mid laga kala yaacay baraf darteed dadka ku noolna aad ayuu yaryihiin sidoo kalena waxaynu tusay fartiisa oo markiiba bilowday inay xanuunto oona isbedeshay barafka dartii qabowgani haddaba ma saameynayo keliya bini'aadanka iyo weliba xayawaanka oo keliya laakiin wax kasta oo meesha yaalla waxay bilaabayaan inay shaqada joojiyaan sida moobilada aynu sidano oo kale halkaas si fiican uguma shaqaynayaan wayna iska baqbaqtiyayaan gawaadhida marka dibadda lagaga yimaado saacada yar gudahood ayay baraf iskugu bedelayaan dhulka magaaladana maadaama mar walba uu barafkana dul fadhiyo wax laga beero amaba wax midho ah oo ka baxaa ma jiraan haddaba ninkani meeshan siduu u gaadho mooska ayuu diyaarad ka soo raacay iyagoo 7 saacadood dhanka bariga u duulay si ay u gaadhaan magaalada Yakutsk loo yaqaano halkaana gaadha ayay ka raaceen iyagoona sii socday 18 saacadood iyo 900 kilomitir si ay u gaadhaan magaaladan ugu qabow Ruushka iyo guud ahaanba adduunka oo dhan labadii habeenimo ayay soo gaadheen tuuladan yar aadka u qabow markii ugu horeysayna waxay arkayaan thermometer-ka meesha lagu cabiro oo sheegayay -60 degree inuu marayo temperature-ku ninkiina waxa odhanaya markaan sida gaadhiga ugu degnay waxaan moodnay inaanu soo galnay meero kale oo aanan dhulkiiba ku noolayn markiibana waxay bilaabeen inay barafkan xamili waayaan maadaama meesha ay ku cusbaayeen aad ayay u qandhoodeen waxayna markiiba bilaabeen inay qufacaan haddaba tuulada yar gebigeeda waxa ku nool 800 qof badka ay ku fadhidaana waa 1.5 kilomitir square tuuladan yar haddii aad dibadda u soo baxdo cid marmaraysa haba yaraatay markisid ninkanna marka koobaad dibadda ayuu soo yar baxaya isagoo 15 mir lugeynaya markaabana waxay arkayaan in baadadka indhuhu ay baraf noqonayaan isaga iyo ninka la socdaba haddaba dhulka ay ku fadhido tuuladan yari sanadka oo dhan hoostiis waa baraf fadhiya wax dabaylana ma soo gasho sidaa daraaddeed dadka tuuladan ku nooli waxay isku dayeen amaba ay samaysteenba system heat amaba kul soo saaraya kaasoo kala diraya dhammaanba tuuladan yar guryaha ku yaala kulkaas oo sii dhex maraya qasabada ama pipes loogu talagalay guryaha ku yaala tuuladana waa qaab ka duwan qaabka guryaha tuulooyinka kale loo dhiso iyadoo marka la dhisayo la isticmaalo intaas oo lakab oo kala sarreeya hadday noqoto qaybta dhulka iyo weliba gidaarada ay guryahani ka kooban yihiin oo iyaguna ilaa 7 leeyar oo kala dambeeya ka samaysan guryahan oo loogu talagalay in waxiid aanu ka bixin si loogu dhex noolaan karo guryahan gudahooda markaad soo gasho qayb ka mid ah waxa loo isticmaalaa talaagad ahaan oo qolal ka mid ah waxa lagu kaydiyaa cuntada iyo waxaad kaydsanayso adan wax talaagad u baahnayn labada qolunba talaagad ka dhiganaysaa haddaba dadka tuuladan ku nool waxay dhaqdaan lo'dana subax waa la soo dareeriyaa si loo geeyo webi u dhow oo ay biyaha ka soo cabaan wax biyo ah oo soo gala guryahanna ma jirto maadaama ay markaaba fadhiisanayaan oo ay baraf isku bedelayaan qaybtan webiga ee loodan ay ka soo cabtana sababta ay u fadhiisan weyday amaba ay u barafoobi waayeen ayaa ah in biyahani ay si fresh uga yimaadaan buurta ninkanin isagoo gabadhii la socda sanka ayaaba fadhiisan gaadhaya naagtii meesha deganeeda la socotayna waxay u sheegaysaa inuu sanka macal iska daboolo oo aanu sidaa ku socon maadaama sankiisii iyo wejigiisa dhinac ka mida ay bilaabeen inay qallafaan haddii qaybo ka mida jidhkaaga uu barafku sidaa u galo oo ay dhintaan waxay isku bedelayaan madow waxaana
waxaana qasabay in la gooyo aakhirka. Markaabana ninkan iyo gabadhii la socotay waxay go'aansanayeen inay gudaha galaan maadaama 10 mirir oo kale aanay xataa dibadda sii joogi karin oo aanay waxba sii duubi karin haddii kale sankiisa uu ninkan fadhiisanayo. gabadhii meesha deganaydna waxay markaa u keenaysaa wax lagu daweeyey markii gurigii gaadhaan mahal yar oo alkohol lagu shubay inuu dhiibisa waxaan ku odhanaysaa ku haya oo keliya ha ku xoqin. intaa kadib gabadhani waxay iska wadatay maryo ay meedhatay. daqiiqada waxa gaadhayana waxay isku bedeleenba maryo dhagax oo way fadhiisteen. kadibna ninkan waxa uu gabadhan u raacayaa si ay u soo listo lo'dii. waxayna sheegaysaa in caano fiican ay ka lisato lo'dan oo ay meesha ku dhaqato. intaa kadib ninkan waxa uu tegayaa rag iyaguna meesha ku haysta fardo amaba waxa uu la kulmayaa ragga ku dhaqa tuuladan fardaha. raggana waxay u sheegayaan in cimiladu aad u hooseysa halkan fardahanna ay u adkaysan karaan cimilada aad ku hooseysa oo ilaa minus 70 digrii ay xamili karaan barafkan maadaama ay yihiin farda gaagaaban. sidoo kale jirkoodana dhogorta ayaa ku badan iyo weliba faadka. sidoo kale fardahan qoobabkooduna waa qoobab aad dhulka uga yara sarreeya marka loo eego fardaha caadiga taasoo ka caawinaysa inayna barafka dhexgelin lugahoogu oo aanay hore u qaboobin. fardahan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in la qasho oo hilibkooda la cuno. hilibkoodana waa kan inoo muuqda ee ninkanina tusayo waana hilib faadkiisu uu badan yahay. ninkanna waxaaba la dhadhansiinayaa hilibkii faraska iyo weliba beerkiisa. waxaana sheegayaan maadaama aanay noo bixin wax midha ahi ama wax fruits aanaanu helin hilibkan ayaanu iska cunnaa bay odhanayaan waanu ka helna fiitaminadii iyo wax walba aan u baahnay. iftiinka cadceedda haddaba halkan waxa uu soo jeedaa oo keliya 3 ilaa 4 saacadood ayay maalin tahay inta kale waa habeen. sidoo kale dhulkan marka la joogo xayawaanka goodirka loo yaqaanaana aad ayuu muhiim u yahay marka loo eego inay transportation u isticmaalaan amaba ay gaadiid ahaan u isticmaalaan iyo weliba inay cunaan hilibkiisa sidoo kalena ay ka samaystaan dhogortiisa koodhadh iyo waxay xidhaan. intaa kadib ninkan waxa uu imanayaa nin kale oo isagu meeshan u jooga maadaama dadka tuuladan ku nool badankooda ay xayawaanka dhaqdaan laakiin ninkan isagu waxba u gaadhsadaa oo kalluunka ayuu soo dabtaa. teendhadiis yareed ayay nagu raacayaan iyagoo marka dambena u raacaya si ay u soo qabsadaan oo ay u soo eegaan shabag uu shalatoo la dhigtay si uu kalluun ugu qabsado. waxaanu raggan uga digayaa inay iska ilaaliyaan barafkan oo ay ku dhex dhacaan maadaama barafku kala dumi karo meelo jilicsan ay jiraan biyahana haddii aad ku dhex dhacdo cid ku badbaadinaysa aanay jirin. waxaanu sidoo kale u sheegayaa in aabihiis sidanoo kale uu dhintay waqtigan jiilaalka oo kale isagoo fariskiisa wata ayuu yidhi ayuu ku dhex dhacay meel sidanoo kale baraf u ah waanu ka soo bixi kar waayey cid u dhoweed oo badbaadisana may jirin sidaa daraaddeed ayuu xabad iskugu dhuftay buu yidhi si uu uga badbaado dhimashada xanuunka leh ee qofku si ayar u dhimanayo isagoo baraf isku bedelaya. shabigii uu meesha dhigtay ayaanu soo saaraya isagoo barafkii ka soo qodaya kadibna wuxuu ka soo saaranayaa kalluun dhagaxoobay wayna soo qaadanayaan inta uu dhuudhuubo ayaanay sidaa ku cunayaan. markaad cunaysana baraf ayaaba la mooda ayuu odhanaya ninkani. sidii aynu hore usoo sheegnay meeshan si aad u hesho biyaha freshka la cabo waxaad maanta inaad webiga ka soo qaadato laakiin webiga laftarkiisu mararka qaar waxau noqonayaa mid barafoobay sidaa daraaddeed waxaa qasaba barafka in la soo gurto kadibna la dhalaaliyo oo biyo cad laga samaysto. sidaa daraaddeed ninkan waxaan raacayaa nin kale oo meeshan degan si ay u soo gurtaan barafka oo ay kadib biyihii ay cabbi lahayeen uga soo saartaan. baraf fara badan ayayna soo guranayaan. guriga markay keenaanna waxay ku dhex ridayaan caag kale oo biyo kusii jireen halkaas oo ku dhalaalayo biyo la cabo oo caadiyana ay u noqonayo. sidoo kale marka ay meedhanayaanna waqti ayay ku qaadataa iyadoo marka hore aad u baahanta inaad soo gurato barafkii la soo qaaday kadibna aad diiriso si uu u dhalaalo barafku. intaa kadib sidoo kale shaambooga oo isaga laftarkiisuna dhagaxoobay ayaad isagana diirinaysaa kadib baad ku meedhanaysaa. markaad meedhatana hore ayaad iskaga qallajinaysaa si aanad laftarkaaga u barafoobin. sidoo kale dhanka kale ciyaalku subaxii marka ay soo toosaan waxaa loo baahan yagana in maryo fara badan loo xidho marka ay iskuulka tegayaan. sida aynu ujeednana gabadhan labadeedan ciyaal ayay diyaarinaysaa iyadoo maryo fara badan u xidhay sidoo kale barafkana ka wada xidhay aabahooda ayaana kaxaynaya oo iskuulka geenaya. ciyaalku iskuullada way tegi karaan ilaa tembereturku ka hoos maro -50 digrii waayo tembereturka wixii ka hooseeya in dibadda loo baxo aad bay khatar ugu noqonaysaa ciyaalkuna way dhiban karaanba. kadib ninkan waxa uu kusoo noqonayaa ninkii ugaadhsada ahaa oo dabin ay mar hore dhigeen uu ku qabsaday iyaygan inoo muuqda kaasoo dhagaxoobay iyaygan haraggiisa ayaanu ninkan iibsan doonaa. sidoo kale hilibkiisana waxa uu ku dabanayaa bahalka madax butida loo yaqaano amaba dubka ee barafka ku nool. waxaanu sidoo kale tusaya qaar kale oo fara badan oo haragooda uu haysto oo ninkan uu qabsaday maadaamay soo weerareen marar fara badan. haddaba qabowga meeshan ka jira xataa gawaadhidii meesha taallay dhaqdhaqaaqa way joojinayaan oo si fiican uma shaqaynayaan haddii aan la diyaarin. gaadhiga markaad dibadda kaga tagtana waxaad arkaysaa in markaaba baraf daboolayo taasoo xataa ku adkaanaysa marka dambe inaad kicisaba oo istaadhmo. haddaba marka ninkan waxaa weegi doonaa dhalinyaro gaadhi iyagoo ay meesha dhigtaan kicisanaya oo dib u istaadhaya. marka hore waxaad u baahanta inaad barafka ka wada gurto maadaama xataa taayiradu ay banjarayaan baraf dartii iyagoo dhagax isku bedelaya. kadib gaadhiga waxbay hoos gelinayaan kaasoo diirinaya dusha ayayna ka daboolayaan si aanu hiidku dibadda uga bixin
oo gaadhigu u diiro intaa kadib waxay soo qaadayaan bahalkii hiidka ahaa ee kulaylka siinayay wayna ku shidayaan isaga laftarkiisa waa lasii daboolayaa si aanu hiidkaas meesha uga qaboobin oonu barafoobin intaa kadibna 3 ilaa 4 saacadood ayaa la sugayaa si uu gaadhigu u diiro oo biitarigii iyo weliba shidaalkii wixii ku jiro dhan ay dib ugu soo noqdaan 3 ilaa 4 saacadood markay sugayna biitariga ay dib soo gelinayaan kadibna way istaarayaan maadaama gaadhigu diiray si fiican ayaanu istaarmayaa markuu istaarmana waa gaadhiga ay meesha ku yimaadeen marka hore gaadhiga ayayna ka xaysanayaan oo ay meesha kaga tegayaan ugu dambeynna muuqaalka halkaasi ayuu kusoo gabagaboobayaa isagoo ninkani sheegaya in dadka meeshan ku nool aanay wax dhibaataa ku qabin barafkan oo ay aaminsan yihiinba in barafkan lagu dhex noolaado dadka meesha ku noolna Yakut people ayaa loo yaqaanaa muuqaalkanna intan ayuu kusoo gabagabeynayaa haddaba saaxiibayaal haddii aad muuqaalkan ka hesheen fadlan ugu soo biro subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkana like saar aad baad mahadsantahay